iyadoo maalintii saddexaad ay marayso qaadashada kaadhka codbixinta ee guud ahaanba deegaanada galbeedka Somaliland ayaa waxa maanta goobaha ay ka socoto qaadashada kaadhka codbixintu kormeero kala duwan ku soo maray Guddiga Komishanka Doorashooyinka heer qaran ee Somaliland oo kuwaasi oo soo indhaynayay xaaladda guud ahaaneed iyo habsami u socodka waqti xaadirkan ay u socoto qaadashada kaadhka codbixinta Somaliland ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay gudoomiyaha Guddiga Komishanka Doorashooyinka ee gobolka Awdal Professor Faarax uu kaga jawaabay eedeymo maalintii shalay uga yimiday xubno wasiiro oo ka tirsan golaha wasiirada Somaliland iyo sidoo kale xildhibaanada labada aqal gole ee wakiilada iyo guurtida iyo maamulka gobolka iyo kan degmada isagoona ku sheegay eedeymahaasi inay waxba kama jiraan yihiin qoladan muxuu ahaayay golaha wasiirada ee shalay toole hadlayna wax faa'iido uma keenin gobolka dhibaato u keeneen dadka ku keeneen in dadka la firdhiyana maaha dadka in la soo dhaweeyo loo baahan yahay inay kaadhka qaataan wixii cabasho wadana diyaar baan u nahay hadii ilaahay raado gobolka Awdal wax mesela degmada Boorama oo kale wax u soo kordhay mooyaane wax laga jiro ma jiro ciidan hadlaysa imika ee dadka kicinaysaana waxa rabtaa in wax laga jiro 14 goobood ba degmada Boorama ugu soo kordhay 22 waxay ahayd goobood bay ahayd markii hore oo 760 goobooda 14 ka goobood waxa rabnaa goob inay noqoto goob cod bixineed ama goob doorasho inay noqdaan barba gobolka wax soo kordha maahine mar rabna anagu wax laga jaro qoladan hadlaysana wax rabaa in goob la jaro oo la isku celceliyo mana noqonayso marka hore dadku ku badnaa 150,000 oo qof baa la rabaa halkii ka codin lahayn in loo sameeyo midda kale qodobka kale waxa weeyaan jaamacadda Amuud aad bay noo gacan qabatay dad aqoon leh dad baa ku hadlayo dad aan aqoon lahayn baa meeshii la geeyay ninka jaamacadda wax ka sheegay in isagoo aan aqoon lahayn oo liita weey xaqiiqatan dadka u samray aad u samray aad waxa weeyaan yaan ugu boorinayaa markaa dadweynuhu inay qaataan muxuu ahaayay kaadhka qoladan dawladuna inay ka qayb qaataan muxuu ahaayay ololahan lagu qaadanayo kaadhka ama wacyigelinta waxa jira dadkii xagan madanaysay xuduud oo kale aad bay ugu cadilin waxa laga rabaa inay xuduudda soo furaan dhanka kalena waxa uu eedeymo kala duwan u soo jeediyay maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa waxa uu sheegay shalay toole waxa hadlay meeyarkii degmada oo nasiib daro meeyarkii dhanay degmada joogay inuu tiradii degmadiisa garan waayo oo 42 goobood ku sheego waa in dar meediyaana uu ka sheegay waxa weyn horta inuu wareysto komishanka u yimaado imise goobadba degmada Boorama dhexdeeda ah u yiraahdo degmada Boorama waa imise u yiraahdo waxa weyn barasaabka gobolkana waxa looga baahan yahay teeno hargeysa hoydo maana inuu halka nagala shaqeeyahay mana aanan arag maalin baan anagu xafiiska ugu tagin anu gudoomiye gobolka wali ismaanaan arag waxa weyn anaga na wareysto inuu intuu TV fadhiisto oo wuxuu doonay isaga hadla ma waxa weyn waxaan waa bulshada in la kiciyo maaha bulshada waxa weeyaan in lagu wacdiyo inay qaataan magaranaysa kaadhkooga si fiican u qaataan oo xora oo doorasho cadaalad xora ay galaan hadhow toon si kastaba ahaatee shirkan jaraa'id gudoomiyuhu qabtay ayaa waxa uu daaranaa sidii kor loogu qaadi lahaa qaadashada kaadhka codbixinta ee guud ahaanba deegaanada kala duwan ee gobolkani Awdal